Wallahi wabarakatuh. Isku soo noqosho dambe iyo kulan dambe oo xiiso leh. Insha Allah maanta waxaynu halkeenii joogtada inoogu ahayd ama halkii cashirkeena inoogu jooga si aan baqay doonaa. Cashiraantii taxanaha ay soo wadnay. Toddobaadkii inoogu dambeeyay ama maalintii inoogu dambeysay cashirka waxay inoogu joogtay cytoskeleton inoogu joogtay. Cytoskeleton anagu kula qaybinay saddexdan: microfilament, intermediate filament iyo microtubule. Ee soconay cashada dambe insha Allah cashirkeena soo geli doono ku xiga ayaynu sii kala qaadi doonaa. Haddaba intaas aynu maanta baran doonaa, saddexdaas aynu maanta baran doonaa si fiican la socdo insha Allah. Okay. Cytoskeleton markaan leenahay horta bal structure-kiisa intaan barano intaan mataqaanaa u gudbin ama meesha uu dhaco. Cytoskeleton waxa la odhanayaa cytoskeleton waxyaabaha yar ee miiqmiiqada yar meelaha ka taagan wada aragtaa ma filaya. Miiqmiiqada yar ka taagan ma noqonaya oo ka magacu cytoskeleton asaan ku qoran. Waxa kale oo noqonaya cytoskeleton salka oo ah mataqaanaa miiqmiiq yar ah kaasoo faa'iido u haya. Si fiican la salka looga arki karin shaqadu hayana aad bay muhiimsan tahay. Way cytoskeleton maintain wuxuu joogtaa the shape of the animal cells. qaabkan uu joogteen iyo waliba cell animal cells ku joogtay oo ka qayb qaata macnaha. Waynu baran doonaa soo joogteen iyo xaso dhan. Hadayna sawirka ku soo garanay cytoskeleton midaynu dhex tagi doonaa. Saddexdan kala qaybinay microtubules and microfilament iyo intermediate filament. Lanka ugu horeeyay leegi doonaa bal microfilament baynu leegi doonaa. Microfilament are filament weeyaan proteins dadka soo haysta lagu rusty diameter. macnaha intani musbaarka ku leeyahay dheeraantiisu musbaarka qayb saw leeyo hol macaan leeyahay 7 nanometer lagu qiyaasaa length dheeraantiisa. Microfilament kan waa rusty diameter leeyahay waxaan lagu qiyaasaa 7 nanometer lagu qiyaasaa. Deep waxa laga helaa guri deep cytosol gudaha laga helaa macnaha. Cytosolka gudaha ayaa laga helaa ama qaybtan mataqaanaa fluidka biyaha cytoplasm ku dhex jirta ayaa laga helaa. oo soo qaadanaa filaya. Contain wuxuu ka kooban yahay laguuri microfilament. Microfilament wuxuu ka kooban yahay laguuri thin filament and thick filament. Thin filament muxuu noqonayaa waa actin protein la yiraahdo ku jira actin protein weeyaan troponin tropomyosin. waa kuwaas waxay ka muhiim yihiin mataqaanaa muscle contraction ka. macnaha cellkan microfilament marka cellka la joogo cellku ku dhex jira laguuri cellku wuxuu ku dhex jiri kala meelo badan ku jira. Anagii mataqaanaa inta dhirka soo sheegan jirnay intayotiliin oo sal inuu dhex jira. Markaas wuxuu ku dhex jiraa microfilament-gana waxa ku dhex jira uu leeyahay actin troponin iyo tropomyosin ayuu ka mid yahay lagu kan microfilament-ga ku dhex jira uu muscle-ka laga helaa waliba waxay u qaabilsan yihiin muscle contraction-ka u qaabilsan actin troponin iyo tropomyosin. iyo thick filament mid la yiraahdo myosin la yiraahdo tan myosin iyo mid gooniya labada majoorka mataqaanaa ka masuula mataqaanaa muscle contraction-ka ama contraction-ka ayaa noqonaya actin iyo myosin. labadaas mataqaanaa uu joogtiyo oo laga hela microfilament-gan ka faa'iideyso aad buu badan tahay halka marka ka muuqata. halka hadaynu ku soo aragno mataqaanaa microfilament-ga oo ka socono intermediate filament baa jira. Intermediate filament are large than uu ka yahay lagu microfilament-ga uu ka yahay meelaha wuxuu noqon karaa 10 nanometer meelaha kale lagu qiyaasi karaa. uu ka mid yahay waa lagu mataqaanaa microfilament uu ka yahay waa raf waa qayb raf oo mataqaanaa protein xaas mataqaanaa aduu raf buu noqon karaa sidii mataqaanaa filament kale macnaha meel yar oo mataqaanaa jarjar leh macnaha isku sineen oo raf ah iyo insoluble protein iyo protein ma lagu yiri stable uu joogo mataqaanaa stable mid jooga lagu yiri ampermeable protein joogta ayaa laga helaa lagu yiri marka mataqaanaa joogta intermediate filament-ga oo uu qabto faa'iidada ma shaqadiisa uu qabanayo lagu yiri has a high tensile waa mid kala baxaya strength mataqaanaa kala jiidahaantiisa. dad resist ka caawiya pulling force like aspirin muscle-keena markuu soo kala baxo isku dhagayo waxaad moodaa inuu yar yahay dad soo kala fiisay waxaad arkaysaa inuu mataqaanaa soo kala baxo muscle-ka ama weynaanayo ama lugta weynaanayo ama mataqaanaa marqaad soo kala bixiso weynaanayo arki kartaa. markaas intermediate filament ku jiri karaan oo dhakana oo sida aspirin-ka kale ka masuula macnaha waa qaybta aspirin-ka samaysan waa macnaha waxaan oran karnaa waa aspirin-nada wada aragtay ma filay gaariga ku socdaan waa aspirin-nadaas oo kan oran karnaa mataqaanaa intermediate filament-gu oo ku dhex jira cell-keena gaar ahaan waxa laga helayaa mataqaanaa muscle-ka laga helayaa lagu yiri. Okay hadaynu ku soo dhaafno kaas intermediate filament-ga mataqaanaa intermediate filament-ga
waxa ku jira haddaba hasla eegno. haddaynu odhanay mataqaanaa waa borotiino ku dhex jira ama mataqaanaa waa masalka ku jira waa hydrosal strangus weeyaan dherarkiisu mataqaanaa kaasoo kale baxayo oo ku yaala mataqaanaa laga heli karo saan dareemi karno maskaliska laga heli karo. maskalku doono waxaa la smooth buu ahaan karaa, waxaa karaa cardiac buu ahaan karaa, waxaa ahaan karaa skeletal muscle buu ahaan karaa, ku doono ahaado. way intermediate mataqaanaa filamentiga waxaa ku jira borotiinada soo socda. first one keratin mataqaanaa borotiin la yiraahdo ku jira isdhaar borotiin weeyaan oo borotiina dhintay weeyaan ama mataqaanaa way matalaan balwada kaasoo forms ku samaysan lagu surface of the skinka dushiisa skinkeena maqaarkeena dushiisa oo ama epidermis waa skinka marka loo kala saaro mataqaanaa laba qaybood dermis iyo epidermis iyo mid kale isaga lagu khaldo oo mataqaanaa hypodermis la yiraahdo ama subcutaneous loo yaqaano qofka soo yaqaano ama deep tissue sawkaas mataqaanaa skinka ma tirsano marka dermiska iyo epidermiska way kala sarreeyaan. epidermiska ka sarreeya dermiska ka hooseeya marka wuxuu ku jiraa wali keratin waxa laga helaa skinka sare oo ama epidermiska laga helaa wali used waxay ku hortagtaa wali mataqaanaa keratin waxay ku jirtaa prevent used waxa la socdaa preventing cause perspiration mataqaanaa oo baxa ama digidka markaan digidno kale of water from the body jirka markaynu digidno kale wada aragtaan ma filaya waa biyo inaga yimaada inayna caanaha biyo fara badan bixin buu ka masuul yahay borotiinka loo yaqaan keratin uu inaga ilaaliyo perspirationka ama mataqaanaa baxa inaga ilaaliyo wali in biyo wada baxaan sababtoo digidku waa mataqaanaa waa energy-daadii waxaan loo baahnay waste product oo la shiido la soo saaro maayo waxyaabaha cuntada hada wax kasta adsamo marka macnaha waxay haynaysaa wali ama ay kaadinaysaa wali wixii biyihii badnaa bixi la wali fermentin isagana borotiin la dhaha jira oo borotiin dadka soo forms ka samaysan wali cell originated from mesenchymal mesenchymal ku yimid during embryological markii macnaha oo mataqaanaa ilmuhu samaysmayo mesenchymal mataqaanaa mesoderm mataqaanaa marka loo kala qaybinayo mataqaanaa saddexdii layer ee mataqaanaa embryologicalka ayuu haddaba kan yahay kan mesenchymal la yiraahdo ayuu ka imid mesenchymal waa kan dhexda weeyaan mataqaanaa labada kale mataqaanaa iyaguna sidoo kale oo ka samaysmo waliba special kan mesenchymal ayuu ka yimaada wali fermentin kan wali embryological weeyaan maintain wuxuu joogteeyaa wali cellular stabilization cytoskeleton inuu cytoskeletonka uu joogteeyo oo hayo macna establishing oo adkeyntu waxayso interaction iyo saddexgalka amplifying resistance to afford damage inuu ka ilaaliyo waxyaabaha mataqaanaa cellska damage gareynaya inuu ka ilaaliyo weyn markaas mataqaanaa fermentinku waxa soo qabta faa'iideysi leeyahay. okay haddana ka soconno borotiinka desmilayda oo fermentin like protein dadka found on the muscle tissue and fermentin like waa borotiin bal dadka soo laga helaa wali muscle tissue waa sidii fermentin oo kale fermentin oo naga soo tulaan jirnay haddaynu ku soo noqono fermentin oo naga lahayn muscle ma laga helaa mataqaanaa embryologicalka wuxuuna joogtiyaa cytoskeletonka oo for damage ku ilaaliya cytoskeletonka haduu joogtiyna muscle ku tiyaariga cytoskeletonka badbaado ku badan yahay muscle ku badan yahay inuu joogtiyaa lagu way haddaynu ka socono desmintan iyadoo waxa soo kala xilamay tahay si fermentin kala lamid tahay lagu kaasoo laga helo muscle tissue-ga tii hore muscle ku ma laga helayo mataqaanaa fermentin desminna waa lamid gabriel fabrial acidic protein la dhaha jira support uu taageero aan encoding wuxuu ku wareegsan lagu structure of neuron ku wareegsan like sida astrocytes san xidigtoo kale astrocytes star bala macnaha ayuu mataqaanaa ugu wareegsan yahay mataqaanaa ayuu galial fabrial acidic cell kan ku wareegsan yahay lagu way wanda dejina casharkan isla haysanay neurofilament baa sigana jira mid dhacdo neurofilament intermediate filament weyn dadka soo forms ama walls of neuron gidaarada waxa ka samaysan neurofilament kan waxa ka samaysan gidaarada neuronska ama neuronska gudbinaya wax mataqaanaa nerveskan ayuu gidaarihiisa ka samaysan yahay lagu mataqaanaa neuronskan neurofilament uu ka samaysan yahay lagu ka mataqaanaa intermediate filament ku faa'iido fara badan minahaya haddana ka socono laminin borotiin la dhaha jira laminin tani isfon waxa laga helaa nuclear membrane nucleoska laga helaa nuclear membrane qaybta kale ee mataqaanaa nucleosta ma nuclearta qaybta ku soo hooseysa nuclear leedahay ayuu ku jirtaa wali laminin tani iyadna laga helaa wali kaas laga foon gariyaa wali markaas waxay nooga muuqatay inuu mataqaanaa intermediate filamentka aad u fiican yahay mataqaanaa faa'iido fara badan oo jirkeena hayo haddaynu ku dumeysino kii u dambeeyo ahaa microtubule waa kii u dambeeyay mataqaanaa cashirkeeni ama cytoskeletonkan microtubules kan waxa lagu yiri determine wuxuu go'aamiyaa overall shape of the cell
qaabkan shape-kan dhan ee cell-ku go'aamiya lagu dadkaas oo distribution ku kaydsan ama ku baahsan aan yiraahday cytoplasm organelles wuxuu ku baahsan yahay lagu cytoplasm organelles ama organada jirka ku baahsan yahay cell-ku ku baahsan yahay organada yar soo tiraan ku baahsan yahay organ ku doono ha peroxisome ma ahaado Golgi apparatus ma ahaado any organ ku doono ku faafsan yahay baa lagu microtubules kani waa yahay is a largest of cytoskeleton ugu weyn mataqaanaa cytoskeletonka waa 25 nanometer kii ugu horeeyay maxaan ku soo tilmaanay mataqaanaa microfilmatiga 7 nanometer daxsudo intermediate filmatigina wanagi 10 ku qiyaasi karnay kana waa 25 markaas say kula waaweyn kana ugu weyn it means oo microtubule la yiraahdo made up wuxuu ka samaysan yahay lagu spherical protein spherical like spherical mataqaanaa sameynaya lagu waxaasay like macnaha dhululbo kala protein dadkaas oo loo yaqaan tubulin protein la ku jira mataqaanaa spherical protein sameeyay lagu microtubules badanana waxa laga helaa inta cytosol-kaas oo waxa ku caana maskalka ku caana lagu maskalka ku caanasan aga ka dhanasayna hadalkiina ama sharaxaadida kala dhasayna hadayna ka socono thank you for watching aad u mahadsantahay kullu sida fiican u daawatay insha Allah xariijinaya cashirka inaad ku soo ceshan doonto oo ka faa'iideysan doonto wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh